gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi ayaa waxa uu maanta xadhiga ka jaray dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyay laanta banka gobolka Gabiley oo kamid ah bangiyada ugu da'da weyn uguna qadiimisan Somaliland. gudoomiyaha ayaa waxa ku wehelinayay xadhiga jarkani agaasimaha guud ee banka dhexe ee Somaliland duqa degmada Gabiley barasaab ku xigeenka gobolka iyo mas'uuliyiin kale. waxaanay soo kormeereen sida loo nashqadeeyay dhismaha banka oo kamid ah dhismayaasha ugu qadiimisan gobolka Gabiley iyo guud ahaanba Somaliland iyo sida uu u shaqeeyo bankani. ugu horeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay idin soo dhaweynaa maanta wax xadhig jar waxaan halkan ka cadeynaa muddo ka soo wareegtay 1973 baa banka la dhisay si iska wax u qabsaa ilaa inta waxba laga ma qaban. gudoonka banka ku guuleystay inay maanta wax ka qabtaan. run ahaantii waan ku faraxsanahay horta annagu waxaan shirkadaha tooska ugu xidhan baan nahay marka bankiga siiba tooska markasta ugu xidhan markasta macaamilka la leeyahay financial ku ka dhaxeeyaan nahay maalintii intaas oo transaction baan noo mara waana ku soo dhaweynaynaa horta sida darteed aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waqtiyadan dambe sida wanaagsan ee uu degan yahay qiimaha iyo sicirka lacagta dalkeenu. sidoo kale laanta Gabiley waxaanu aad uga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee baryahan dambe ee dardartu ku jirto. waxaanu mar labaad runtii aanu kaaga mahad celinaynaa booqashada noogu timi adigoo sidoo kale xadhiga ka jarayay dayactirka iyo dib u habeynta lagu sameeyay markii koobaad intii bankan la dhisay. ahmiyadda ay leedahay shaqaalahana kaabista bilin u sameeyaan xaruntii dayactir ku sameeysaa oo qalabaysaan runtii aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa. aad iyo aad baan runtii gudoomiyaha idinku mahadnaqaynaa adiga iyo agaasimaha guudba. waana runtii bangiyadu waa meelaha ugu muhiimsan ee qarankan xagga dhaqaalaha iyo muxuu ahaay kaydka qarankaba inoo haya. marka labada balan waxay direysana shaqaaluhu yeeshaan laantana ugu daro laanta ugu horeysa la hagaajinayo ay noqoto sanadkan la casriyeenayo. waxaan gudoomiyaha ugu mahadnaqayaa inuu fikirkii markiiba uu fuliyay oo maaragtay runtii uu qaatay isla markaana laantani inay tahay laan halbowle ah oo dhulkii beeraha ah oo dhulkii dakhliga ee cashuuruhu ka soo geliyeena in wada ogsoonahay. aad baan ugu faraxsanay maanta inaan mar labaad ku soo noqdo Gabiley oo bishii August 14keedii aan soo maray anagoo jaale ka imi. maalinta iyo maanta aad bay u kala duwantay oo maalinta xitaa guri dhexdiisu wuu daroorimay laakiin maanta waa artay in muxuu ahaa bilada ka muuqato. branchkan waxaa la sameeyay 1973 sidii loo hore loogu sheegay. waxaa dib loo furay 1991 June markaa inay tahay deelaan xagga tacliinta iyo xagga aqoonta ka dhisan oo aan filayo inay tahay weliba ugu horeysa marka laabaha kale leego ayaan filaya inay Gabiley tahay. taasi waxay muujinaysaa capacity building shaqaaluhu inay yihiin dad tayo leh. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadin warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.